هذا ميل أراي أسكواني لهاي ويبوها إنجليز كواريه Unite we strong وران مدونه أن إسكدوبنا نوي مركز حقوق والإذانه معناش ويبوها هديلنا إسكدوبنا إنه تفرق نقال ويبوها divide and rule ولنا كيف سده وأنا نيتم هذا سمرك ولا ليه ويسين كل تالي لهاي تذكر إسكهاي سدو وليسين هاي تم بلك لما بيلو وأنا أكسن دمانتينا waxaan kaloo si gaar ah u salaamayaa Cabdiqaadir Cali Boolay oo meel fog nooga yimid oo magaalada Zurich waddanka Switzerland maanta awadana la joogo oo waliba na siiyay 10 aanan ilaawi doonin waxaan leeyahay marka Cabdiqaadir Cali Boolay waa encyclopedia waxa la yiraahdaa waa af Ingiriis jarmalkan Wikipedia lagu yiraahdaa waa buugaagta lagu kaydiyo taariikhdii hore lagu kaydiyo oo waliba taariikh kaliya ma ahane cilmiga arts and science labadaba waa lagu kaydiyaa qofkii u baahan waxyaabihii hore dhan encyclopedia ka helaya marka waxaan leeyahay Cabdiqaadir Cali Boolay waa encyclopedia nool oo socdo waxaan u rajaynayaa waliba si looga faa'iideysto cimri dheer in uu Ilaahay u siiyo haddaba haddaan u soo laabto su'aashaydii laba su'aalood ayaan qabaa labadaas su'aalood tan ugu horeysa waxay tahay Cali Boolay wuxuu soo qaaday xisbigii la oran jiray SYL in uu u halgamay gobonimadii dalka Soomaaliya waqooyiga haddii aan wax ka sheegano waxay ila tahay SNC haddii aanan qaldanayn marka koonfurta markaan soo qaato koonfurta SYL kaliya kama jirin waxaa jiray xisbi kale oo la yiraahdo hake DMS ama xisbi dastuur mustaqbal Soomaali marka su'aashaydu kood waxay tahay xisbigaas xisbi dastuur mustaqbal Soomaali ogaalkaaga maadaama adiga encyclopedia adiga aad tahay muxuu ahaa intuu se ka jiray oo ka dhisnaan jiray haddii aad wax ka xasuusatid in yar in aad wax nooga sheegto xisbigaas ma gobonimo doon buu ahaa mise ma ahayn su'aashaydii labaad waxa ay tahay maadaama adiga aad tahay qof saxufi ah saxaafadda ka shaqayn jiray gumaysigii ka horna aad saxufi aad ahayd gumaysigii kadibna saxufi aad ahayd ilaa iyo noloshaadii dowladihii kala dambeeyay ilaa ay ka baaba'aan ama ay waddanka uu ka burburo saxaafadda aad ku jirtay 1960kii waxaa lagu maqaalo ah raadi Muqdisho in uu ka bixi jiray afka mayga sida uu uga baxo afka maxaatiriga waqti kadib afkii maygi hawadii waa uu ka baxay meesha waxaa ku soo haray afkii maxaatiri kaliya ilaa ay hadda kaasa ka socdo ma xasuusataa waqtigii afka mayga raadi Muqdisho oo ka bixi jiray maadaama qof saxufi aad ahayd haddii aad tiraahdid sababta loo joojiyay afkaas oo afka maxaatiriga kaliya raadi Muqdisho ugu soo haray taasna waxaan rabnay in aad faahfaahin aad nooga bixiso jazaaka allahu khayr aad iyo aad u mahadsantahay bismillaahir rahiim horta waa mahadsan tahay sida aad sheegtay SYL kaliya ma jirin xisbiga xisbi waxaa jiray digil imirif la yiraahdo waxaa jiray xisbi conference la yiraahdo waxaa jiray xisbi la yiraahdo progressista ayaa jiray intaanan wixii ka horeeyay 43 wixii ka horeeyay SYL markaa dhalatay xisbi digil imirif la dhashay oo run ahaantii oo ay hogaaminayeen Cabdiqaadir Zoobe iyo khaasatan nin la oran jiray Ustaad Cusmaan Ustaad Cusmaan saad ogtihiin waa gacan dad ayuu ku dhintay niman baa dilay saad ogtihiin دكتور نيكال يرادو وحو أها أستاذ عثمان نين متعلمة نين عربي إنجليز كذا آدي ويقان دلن يرى بدن وحوا بري حسبي ودين وحو أها
xisbiga ka soo horjeeda SYL xisbiyaashan kale waa iswateen xaaji cabdullaahi nin la yidhaahdaa madax u ahaan jiray markii hore markii dambena qolo kala qabatay jiilaani sheekh bin sheekh wuxuu ahaa secretary general bakar mukhtaar secretary general oo ka noqday marka intaasoo dhan waxay ahaayeen hal gacan oo iswadatay ahaayeen SYL gacan kale u ahaa SYL waxaa ka faracmay niman la yidhaahdo Great Somalia yaa ka faracmay waxaa jiri xamar youth club aa jiray intaasoo xisbiyaal bay ahaayeen laakiin xisbigaas ustaad Usmaan iyo xisbigiisa waxay qabeen 10 sano intay yar tahay Soomaaliya 10 sano ma ku filno waqtiga hal dheereeyo maxaa yeelay waxa waaye 10 sano wax ma lagu baran karo maxaa yeelay mustaqbal dawladeed dal mustaqbalkiisa laga fikirayay iyaga fikradda ay qabaan waxay ahayd war waa yar tahay toban SYL waxay ahayd 10 SYL annagaa meesha dawladda abuurina yay ahayd wadaadkaa markii la dilay rabooda waday United Nations ka rawnastalo United Nations ka markii astagi lahay watii la dilay waxaa bedelay nin Sheekh Yarow ma qaana taqaan inta Sheekh Yarow bedelay Abqaadir Zoobe iyo Sheekh Yarow iyo ragii waxaa meesha tagay ee ahaayeen laakiin iyaga kaliya ma tagine waxaa tagay islaam hadalla tagay waxaa tagay nin la yiraahdo hebel Qaasim Abu Bakr Qaasim la yiraahdo waxaa tagay dhowr qofood ayaa xaq tagtay iyagana wax kala ma ahayd ujeedadoodii war 10 sano waa yar tahay hal badi yee ninka waxa lagu dilin siyaasad bay ahayd waxa war naga dhaa 10 sano rabnay gaal ha loo keenay waxa sheegaysa wax kama jiraan usiga nin mutacallim buu ahaa caadadu wax soo bartay wuxuu wariyaa niman Soomaaliyeed waa yar tahay 10 sano Axmed Tareese 30 an ka dhigano ama ambassador si dalka mustaqbal fiican soo yeesho على كل حال انت سيد انا ادي كلام ما قال دي ويدنس لهجه كل شيء horta waxa jiri lahajada waxa jiri Talyaani lagu hadlay waxa lagu hadlay Amhari lagu hadlay Maya lagu hadlay laakiin markii dambe khaasatan markii dawladda dhalatay waxa soo waa la baabi'iyay marka waxa loo baabi'iyay afkan diiraado Soomaali ماي waxay yiraahdeen maay maxaatiri ah maayna waa laga tagay maxaatirida gobolka taas laftigeeda waxa jiray 1900 iyo 46 waxa jiray far Soomaali ah oo la yiraahdo goosanka Usmaaniya la oran jiray goosanka waxa waaye far waxay ahayd oo saas loo waxaysa goosanka la oran jiray فرتي صورة قال ما نقول كما حيال وحي أكتي تي عرب مو أكل تي أمحارة وأكل تي وحنا إسرائيل مو أكل ما تقول بخاصة تدك ولول حق لي تي إسرائيل أكتي مركب أكتي إسرائيل الإسلام وكل الدوين مركب على كل حال تاس ساسة كوهرتي لكن وحي هرتي انت معمول هذا كلا جرا واسعتي لكن مركز معمول رسمي عيد وجوكست انت سوف تقدر لها